kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa duhurnimo isniina 6 bisha Agoosto sanada 2018 arrimahan barnaamijka duhurnimo idinku haynana waxa kamid ah jahwareer ka taagan magaalada Diirdhawa kadib markii gudaha magaaladaasi lagu dilay 9 qof oo isugu jira qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada Jabuuti dhibaatadii ayaa u gudubtay oo waxa lagu dhaawacay 2 qof oo Oromo ah taliyaha ciidamada booliska Jabuuti ayaa digniin culus arintaasi ka diray waxaan jecelahay inaan wadigo dhibaatooyin inay geystaan oo ay isku dayaan inay ku dhaqaaqaan falal xun oo farxun oo dad aan dambi lahayn oo dambi geysan ay ku dhibaateeyaan wararkii ugu dambeeyay ee lugriirkii Indonesia ku dhaftay aad maqli doontaan iyo waliba wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo iska fogeysay eedeymaha la xiriira ku takrafalida hantida qaranka ee hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya uu sabtidii soo jeediyay barnaamijka waxa soo saaray Cabdiraxmaan Xaaji Cadow anigoo Iftaax Ibraahim Cagayrna oo la socodsiinaya balse marka hore sida caadada barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka ee Bashiir Maxamed Caato mahadsanid Cagow muslimiinta waddanka Indonesia waxay sheegeen inay socoto samata bixinta dadka deegaanka iyo dalxiisayaal ku xanibnaa jasiiradda Lombok oo ku dhuftay dhulgariir aad u weyn cabirka dhulgariirkan oo lagu qiyaasay 7 ayaa dowladda Indonesia waxa kale oo ay sheegtay in deegaankan iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan ee dhulgariirku ku dhuftay ay ku dhinteen in ka badan 9 qof waa 90 qof aan iraahday halka boqolaal kale ay ku dhaawacmeen waxda qaabilsan maareynta musiibooyinka ee waddankaasi Indonesia waxay sheegtay in waqooyiga Lombok ay tahay halka ugu daran Kuuriyada Waqooyi waxay dowladda Mareykanka ugu baaqday inay qaado cunaqabateyntii ay ku soo rogtay waddankaasi Pyongyang ayaa sidoo kale sheegtay inay qaaday talaabooyin muujinaya ifafaalo wanaagsan waxaana warbaahinta dowladda dalkaasi ay sheegtay in dalkaasi uu joojiyay dhammaan tijaabooyinkii nukleerka sidoo kalena ay burburiyeen goobihii lagu tijaabin jiray iyagoona intaa ku daray in dowladda Mareykanka ay sidoo kale ku wareejiyeen haraadiga Mareykanka askartii Mareykanka ee ku dhintay dagaalkii u dhaxeeyay labada Kuuriya dowladda Afghaana waxay xaqiijisay kulan dowladda Mareykanka iyo wakiilo ka socda kooxda Taliban ku dhexmaray waddanka Qatar Cabdullaahi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid toos ah u dhexmaray labada dhinac oo aysan cidna ku dhex jirin waxaana kulankan oo dhacay toddobaadkii hore uu sheegay in looga gol leeyahay sidii lagu soo afjari lahaa colaadda muddada dheer ka taagneed waddankaasi Afghaan ugu dambeyn xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku hanjabay in Mareykanka uu toddobaadka soo socda uu si adkeyn doono cunaqabateyntii uu ku soo rogay waddanka Iran Mr Pompeo oo la hadlayay warfidyadeenada ayaa sheegay in cunaqabateyntan ay muhiim u tahay waxa ugu yeeray dadaalada Mareykanka uga hortagaya ficilada dowladda Iran Pompeo ayaa intaa ku daray in aqalka cad ee Mareykanka uu dhawaan ku dhawaaqi doono faahfaahin dheeraad oo ku saabsan waxa laga yeelo Iran warkii dunidana waa nageynta Cabdifatax aad u mahadsan tahay Bashiir Maxamed Caato ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay qodobadii wararka caalamka ugu door karoon halka kala socotaana waa BBC dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka waa tahay aanu ku bilowna wararka ka imanaya magaalada Diirdhawa ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in maanta uu halkaasi jahwareer ka taagan yahay kadib markii gudaha magaalada lagu dilay 9 qof oo isugu jira qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee magaaladaasi wada degan isku dhacyadan cusub ayaa u dhaxeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa waxa la sheegayaa in ay ka dhasheen qalalaasihii sabtidii ka dhacay magaalada Jigjiga dhanka kalena wararku waxa ay tilmaamayaan in dhibaatadu ay u talowday dhinaca dalka Jabuuti halkaas oo la xaqiijiyay in 2 qof oo Oromo lagu dhaawacay booliskuna waxa uu sheegay waa booliska Jabuuti inay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyay weerarkaasi dadka lagu dhaawacay hadaba warkaasi ayaa waxa la socday halkan igula sugan Maxamed Raxmaan Sheekh oo faahfaahinta inoo haya cabdifatax oo rabshadahan u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada oo ka bilowday Jigjiga way faafeen oo meelo badan ay hadda gaareen haddii aan ku bilowno xaaladda magaalada Diirdhawa waxa lagu soo waramayaa in rabshadihii halka ka bilowday shalay ee u dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada ay maanta sii socdaan oo waliba ay sii xogeysteen dad xogogaal ah oo Diirdhawa ku sugan BBC-dana la hadlay ayaa waxay xaqiijiyeen in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso maanta oo keliyana la dilay 9 qof oo isugu jira Oromo iyo Soomaali dadka qaarkood tirada intaa way ka badinayaan oo waxay gaarsiinayaan ilaa iyo 15 qof waxaa sidoo kale jira in guryo badan lagu gubay magaaladaasi booliska federaalka ayaa la sheegay inay isku dayayaan inay xakameeyaan rabshadaha balse weli kuma aanay guuleysan sida ay noo sheegayaan dadka deegaanka haddaba rabshadahan ka soo bilowday Jigjiga sabtidii waxay ku fideen magaalada Diirdhawa waxaana haatan ay gaareen sida aad horey noogu sheegtay Cabdifatax magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti halkaas oo lagu soo waramayo in dhibaato loo geystay qaar ka mid ah Oromada waddankaasi ku nool taliyaha ciidanka booliska ee dalka Jabuuti Cabdullaahi Cabdi ayaa sheegay in ilaa haatan ay ka warqabaan dhaawac soo gaaray 2 qof oo Oromo ah
kuwaasi oo lagu dabiibayo cisbitaallo ku yaala magaaladaasi gacantana ay ku hayaan dadkii weerarkaasi geystay. waxaan ku jirnaa hawl ballaaran oon ku sugayna nabadda caasimadda meel kastoo ha ahaatee ilaa hadda wax haddaan sheego gabadh baa jirta xalaytoo la caawaray gabadhaana wax balaaya ma qabto oo dhakhtarka waxaan geynay talyaaniga nolosheedana ma cabsoonayno maanta way fiican tahay iyo saaka nin oo laga caawaray kana gaadhnay wixii waxaa geystan aan qabanay waan haynaa. haddaba taliyaha booliska Jabuuti waxaan weydiinay qaabka ay ku sugi karaan ammaanka dadkaas oromada ah ee ay hadda cabsidu soo wajahday. deegaan kastaba alkay ka degan yihiin magaalada waxaan idhi iska cayina dad afayeen u ah oo toos noola xidhiidha oo wixii jira noola socodsiiya annaguna saraakiil baan u xil saarnay toos ugu xidhan oo wax alla wixii loo soo sheego markaaba ka hortaga si mataqaantay hawl looga qaban lahaa loo badbaadin lahaa. sidoo kale waxaan taliyaha weydiinay inay jirto cid dadkaasi ka tirsan oo isu diiwaangeliyey inay ku laabtaan dalkooda Itoobiya. dalkay waa dal xor ah dadkuna xor bay yihiin ninka jecel inuu iska noqdo annagu waan u fudaydinaa way jiraan kuwa naga codsaday inay iska noqdaan gaadiid baan u shidnay ilaa xuduudan ku gaarsiinay. dhanka kale taliyaha Jabuuti ciidamada booliska ee Jabuuti waxa uu digniin culus u diray dadka reer Jabuuti ah ee uu sheegay in ay qalalaasaha dalkaasi qaybta ka yihiin. dhammaan waxaan jeclahay inaan xasuusino dadka reer Jabuuti dareensinana inaan nahay annagu dowlad degan oo nabada oo dadka martida ee la degan naftooda iyo hantidoodaba badbaadisa. waxaan jeclahay inaan wadigo dhibaatooyin inay geystaan oo ay isku dayaan inay ku dhaqaaqaan falal xun oo foolfool xun oo dad aan dembi lahayn oo dembi geysan ay ku dhibaateeyaan. taliyaha ciidanka booliska dalka Jabuuti Cabdullaahi Cabdi ayuu kaasi ahaa. maxamed raxmaan ayaa kasii waran. maxamed ha iga tagin weli warbixino kale ayaan kaa sugaynaa inaad nala siisid. wariba waxaanu ku guda jirnaa wararka Itoobiya waxaa lagu soo warramaya in xaalad cakiran ay ka taagan tahay magaalada Jigjiga halkaas oo meelaha qaar laga maqli karo dhawaqa rasaas lagu kala eriyayo dad ka soo jeeda qowmiyadaha kale ee magaaladaas ku nool oo xiray qayb ka mid ah wadooyinka muhiimka ee magaalada. waxay kaloo wararku intaasi ku darayaan in inta badan ay maanta xiran yihiin xafiisyada dowladda iyo goobaha ganacsiga ee magaalada iyadoo aanay jirin wax gaadiid oo magaaladaasi soo galaya. dhanka kale wararku waxay sheegayaan in hogaamiyaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo waliba kuwa federaalku ay u socdaan wadahadallo toos ah oo dhibaatada lagu xalinayo. haddaba maxamed cabdiraxmaan dib ugu laabto maxamedow bal dhanka Jigjiga inooga waranayana. xaaladda Jigjiga oo shalay ilaa saacadihii hore ee saaka deganeed ayaa lagu soo warramayaa in hadda ay kacsan tahay dhalinyaro badan oo ka tirsan qowmiyadaha aan Soomaalida ahayn ee magaaladaasi ku nool ayaa isku urursaday ayaa la leeyahay kaniisado magaaladaas ku yaala waxaana markii hore ay booliska u sheegeen in kaniisadaha ay ka difaacayaan Soomaalida markii dambese waxa ay bilaabeen inay xiraan wadooyinka agmara kaniisadaha oo xataa mararka qaar ay dhibaato u geystaan dadka Soomaalida ee halkaa maraya. taasina waxa ay keentay in booliska ay soo farageliyaan xaaladda oo ay rasaas cirka u ridaan si ay u kala eriyaan dhalinyaradaasi gadoodsana. Cabdifataaxo waxaa sidoo kale warar goordhown soo gaaray ay sheegayaan in dagaal culus oo u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada uu ka socdo degmada Tuli Guuleed ee gobolka Faafan halkaasna ay isku dagaalayaan Oromada iyo Soomaalida. waxa ay wararku sheegayaan in dagaalyahano ka tirsan Oromada ay la wareegeen gacan ku haynta ilaa 5 deegaan oo dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ka tirsan. dagaalkan ilaa hadda uu weli socdo. aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdiraxmaan sheekh ayuu kaasi ahaa oo faahfaahinta wararkaasi ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan guud ahaan deegaanada Soomaalida Itoobiya iyo Diridhaba iyo waliba dadka lagu dhaawacay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti inooga warramayay wixii ka soo kordhay idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan balse Facebook ay dhegeystayaal raayigooda ka soo dhiibanayaan. maxamed axmed cawil oo jooga magaalada Boosaaso waxa uu leeyahay rabshadaha ka dhacay Diridhaba waxay daba socdaan buu yiri xiisadaha Jigjiga iyo argoosiga Oromada runtiina waxaa keenaya buu yiri waa qalalaasaha Jigjiga iyo kacdoonka xooggan ee gobolka Soomaalida gilgilay. run ahaantiina aad baan uga xumahay in mar kale labada qowmiyadood ganafka isdaraan oo ay taasina dhibaato ka dhalato xal ayaana laga gaari doonaa arrintaasi oo loo baahan yahay buu yiri. Salmaan Mahad Faarax oo ka soo qoray Burtinle aad baan uga xumahay buu yiri rabshadaha laga soo sheegay magaalada Diridhaba waxaan ugu baaqi lahaa buu yiri in xalka la dejiyo dadku meel ay kala aadimayaan buu yiri waana dad wada dega dhaqan iyo deganaan iyo weliba intaba waxaa loo baahan yahay in marka dhibaatadaasi lagu xaliyo qaab deganaansha. waxaan qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC ee Facebook. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. saacaduna haatan waxa ay tilmaamaysaa 2:10 gawa ciyaarihii ayaa inoo soo socday iyo weliba bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya balse markan
waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan 19 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii ee axaddii shalay ahaa ku dhuftay jasiiradda Lombok ee dalka Indonesia. Dhulgariir kale oo toddobaadkii hore ku dhuftay halkaasi ayaa waxaa ku dhintay baa laleeyahay 16 qof. mas-uuliyiinta Indonesiana waxay sheegayaan inay daadgurayaan 10 kun oo qof oo isugu jira dadka deegaanka iyo dalxiisayaal ku goodoomay deegaankaasi Lombok. haddaba faafahinta wararkii ugu dambeeyey waxaa isku soo duway oo nala socodsiinaya Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil. afhayeen u hadlay hay-adda maaraynta dhibaatooyinka dabiiciga ah oo la yidhaahdo Sutopo Purwo Nugroho ayaa sheegay inay dhibaato weyni soo gaadhay waqooyiga jasiiradda Lombok. waxa uu sheegay in milatariga iyo adeegyada gargaarku gaadhsiiyeen dadka waxyeeladu gaadhay daawooyin iyo taandhooyin. hase ahaatee dhulgariirku waxa uu waxyeeleeyey waddooyinka iyo buundooyinka. tanina ay carqalad waxa ay ku noqotay meelaha qaar in la gaadho. waxaa kale oo uu sheegay in laga cabsi qabo inay tirada dhimashadu korodho. waa dhulgariirkii labaad ee ka dhaca toddobaadkan Lombok. Tiffany Loh waxa ay u shaqaysaa hay-adda Lanqeyrta Cas. waxa ay booqatay deegaanka dhulgariirku ka dhacay. waxaa jira markii ugu horreysay oo uu dhulgariirku dhacay dadka waxay dibadda uga soo baxeen guryahooda. isku dhexyaacii dadka ayaa xaaladda sii hurusay. calaamadaha ugu horreeya waxay muujinayeen dhulgariirka ugu horreeyey inuu 2 goobood saameeyey. 3 goobood ee kalena way wanaagsan yihiin. waxaana waxyeelada dhulgariirkan ka xaqiijin karnaa goobta 3aad oo aan rumaysanahay inay tahay koonfurta Lombo oo uu si weyn dhulgariirku u saameeyey. magaalada Mataram waxay ka badbaaday dhulgariirka. James Kelsal waa dalxiise isaga iyo saaxiibadii ay socdaalayeen jasiiraddaasi 10kii caalamaale u dambeeyey. iminka waxa ay ku xaniban yihiin jasiirad la yidhaahdo Chile oo ay ku sugayaan in laga soo qaado iyaga iyo 100 qof oo kale. waxa uu sharxayaa sida uu dhulgariirku u dhacay. naxdin badan ayay ahayd, sidii in dhulka oo dhan uu ruxmayo. saani looma istaagi karin, meel walbana laguma nabadgelayn runtii, waayo dhulka oo dhan ayaa gariirayay. saas darteed xagga xeebta ayaan u cararnay oo dhismayaashu aanay nagu soo dul dhacayn, laakiin waxaan maqlaynay dhismayaasha hareeraheenna ku soo dumayey. waxaa kale oo uu James sheegay in jasiiradda ay ka jirto wareer iyo isku yaacyaac iyaga oo dadku isku dayaya inay doonyo raacaan. xeebta waxaa ka buuxay dad u badnaa dalxiisayaal iyo kuwa yar oo dadka deegaanka ah oo sugayey in meesha laga daadgureeyo. dooyinkii ugu horreeyey ayaa soo gaaray abbaaraha 7 ama 8 saaka, waxayna marka hore qaadayeen haweenka iyo carruurta. fawdo oo kale ayay ahayd. dadku doonyaha ayay isku ciriiriyeen. waxay doonayeen inay aadaan dhulweynaha halkaas oo qoysas ay ku leeyihiin. marka dalxiisayaashii reer galbeedka ahaa ayaa meesha looga tegay xeebta. codkaasina waxaa ugu dambeeyey warbixintii waryaha BBC Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil oo inaga soo diray magaalada London. halkaad warbixinadaasi kala socotaanna waa BBC. ciyaarihii ayaa inoo soo socda, balse markan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa iska fogeysay eedeymaha la xiriira ee ku tagrifalka hantida qaranka ee hantidhowrka guud ee Soomaaliya uu ujeediyey Sabtidii, weliba isagoo u jeediyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daa'uud. wasiir ku-xigeenka ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu galay falal musuqmaasuq. dhanka kale wasaaraddu waxay cambaaraysay qaabkii xoogga ahaa ee booliska federaalku uu ku galay dhismaha wasaaradda. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa soo akhriyey oo aan khadka taleefanka faahfaahinta ku weydiiyey waryahayaga Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. cabdi fataax, war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda waxaa lagu yidhi wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay beeninaysaa dhammaan eedeymaha xaqiiqda ka fog ee lagu asteeyey waxaa loogu yeeray musuq maasuq ee warbaahinta ay mariyeen hantidhowrka guud ee qaranka. waxayna caddayn u tahay baa layidhi habka ay uga tallaabeen hanaanka hay-adaha dowladdu ay ku wada shaqeeyaan oo ah dukumenti isdhaafsi. taasi beddelkeeda ay ku dhiiradeen inay meel uga dhacaan maamuuska iyo xurmadda wasaaradda, sidoo kale ay sumcad dilaan mas-uul dowladeed oo xilkii loo igmaday gudanaya, lana hayn caddaymo sugan oo ah sheegashadooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan magaalada Garowe oo aan saaka mar taleefanka kula hadlay wuxuu ii xaqiijiyey in war-saxaafadeedkan uu si rasmi ah uga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Ibraahimow, sidee arrintan ku soo bilaabatay oo heerkan haatan ay taagan tahay ku soo gaartay?
cabdifataax sabtidii oo ay bishani ku beegneen 4 ayaa ciidamo booliis ah oo aad u hubaysan waxay galeen dhismaha wasaaradda iyagoo doonayay inay xafiiskiisa ka soo xiraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Mukhtaar Mahad Daa'uud hase yeeshee waxaa arrintaasi ka dhashay buuq kadib markii wasiirku uu diiday inuu raaco ciidanka aakhirkii waxaa soo farageliyey ra'iisul wasaaraha taliyaha ciidanka booliska waxaana dib looga qaaday halka ciidankii yimid wasiirkuna shaqadiisa ayuu si caadi ah waqtiga wixii ka dambeeyay u sii watay isla galabtii sabtidana waxaa si wada jira ula hadlay warbaahinta hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir waxayna sheegeen in wasiir ku-xigeenka loo haysto ku takrifalka hantida qaranka iyo ku xadgudubka shuruucda u degsan maamulka maaliyadda gaar ahaan dakhliga dalka u soo xarooda iyo sida loo maamulo waxayna intaa ku dareen in loo gudbin doono kiiska wasiirka maxkamadda awoodda u leh hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu sheegay in baaritaanka kiiskani uu soo bilowday bishii abriil ee sanadkan marka waxaad moodaa in weli ismariwaa arrintaasi uu ka taagan yahay laakiin waxaan arki doonaa halka sheekadani ay ku biyo shubato halkan ayaanan idinkugu soo gudbin doonaa wixii ka soo kordha hadduu eebbe idmo ibraahim maxamed aadan ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefonka igu warramaya kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com halkaad weli nagala socotaanna waa b b c ciyaarihii haddii aanu markan eegno tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Maurizio Sarri oo shalay kooxdiisii laga qaaday koobka Community Shield-ka ee lagu furo horyaalka Ingiriiska oo Man City ay ka qaaday waxa uu sheegay in uu la hadli doono golaha kooxdaasi waa Thibaut Courtois kaas oo kala hadli doono mustaqbalka kooxdaasi uu kula sii joogayo waa maanta ciyaaryahankan kaalinta koowaad kaga jira golahayaasha xulka waddanka Belgium-ka ayaa waxaa si weyn loo xiriirinayay inuu u wareegi doono kooxda Real Madrid oo maalmahan babaadigob ugu jirtay sida ay dhinaca daafac dambe ama golahayaha isaga dhisi lahayd dhanka kale kooxda Fulham ayaa waxa ay aad ugu dhowdahay inay la seexato daafaca kooxda Arsenal ee Chambers kaas oo ay doonayso in hal sano oo qandaraas dhanka amaahda ay ku soo qaadato labada kooxood heshiis bay gaareen balse waxaa la isku mari laayahay baa leeyahay ciyaaryahanka qaabka uu kooxdaasi ugu wareegayo iyo lacagta uu ka qaadan doono dhanka kalena Celtic ayaa waxaa lagu wadaa in ay wajihi doonto kooxda Sweden ee Malmo ama kooxda kale ee waddanka Hungary u dhalatay ka dheesha MOLVD waa ciyaaryahan markii ay timaado wareega kala baxa ama lagu soo gudbayo koobka horyaalada Yurub iyadoo kooxda Celtic ay ka soo gudubtay kooxdii Athens ee ay wada dheeleen toddobaadkii hore Inter Milan waxa ay baadigob ugu jirtaa sida ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka khadka dhex uga ciyaara kooxda Real Madrid Luka Modric iyadoo loo qabtay toddobaadkan dhamaadkiisa inay ogaan doonto in ay fursad u heli doonto ciyaaryahankaasi inay kula soo wareegtay in kale ciyaaryahankan khadka dhex hore uga dheeli jira kooxda Tottenham ayaa waxa loo doortay inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaartooydii ka ciyaartay koobkii adduunka ee dhawaantan kusoo gabagaboobay waddanka Ruushka kaas oo xulka Faransiiska uu ku guuleystay markana barnaamijkii baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdulaahi Jaamac Samiira mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay Safiya Cabdulaahi Bare oo joogta Baardheer waxa ay baafinaysaa Raxma Cabdulaahi Bare waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2013 hadaba hadii ay maqleyso Raxma Cabdulaahi Bare amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Safiya Cabdulaahi Bare iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheer Bare Aadan Xuseen oo joogo Garbahaare
waxa uu baafinayaa aadan cabdi aadam waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka suudaan 2012 haddaba haddii uuna maqlayo aadam amaba jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo bare aadan xuseen ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey. yoonis cabdulaahi cabdi oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa cali cabdulaahi cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka faransiiska sanadii 2009 haddaba haddii uuna maqlaya cali cabdulaahi cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo yoonis cabdulaahi cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25614443 mahdi siraad jaamac oo jooga Garbaharey waxa uu baafinayaa cabdiweli cusmaan jaamac waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur afrika 2014 haddaba haddii uuna maqlayo cabdiweli ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo mahdi siraad ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garbaharey. hodan bashiir nuur oo joogta Garbaharey waxa ay baafinaysaa cabdi xakiim bashiir nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Hindiya sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi xakiim bashiir nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo hodan bashiir nuur iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526533211. Seynab Cabdalla Cusmaan oo joogta Garbaharey waxay baafinaysaa Yaxya Cabdi Cabdalla waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Norway 2012 haddaba haddii uuna maqlayo Yaxya ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zeynab ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey. xasan jaamac warsame oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa cabdulaahi sheekh axmed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Sweden sanadii 1993 haddaba haddii uuna maqlayo cabdulaahi sheekh axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xasan jaamac warsame iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526579376. xalimo mursal cali oo joogto Shangalow waxay baafinaysaa Ronow mursal cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2011 haddaba haddii uuna maqlayo Ronow mursal ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xalimo mursal ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Shangalow. barey cabdi gamacdiid oo joogta baardheere waxa ay baafinaysaa cumar axmed gamacdiid waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2013 haddaba haddii uuna maqlayo cumar axmed gamacdiid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo barey cabdi gamacdiid iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2525585539. cabdifataax axmed bulxan oo jooga Garbaharey waxa uu baafinayaa cabdikariim axmed bulxan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka 2014 haddaba haddii uuna maqlayo cabdikariim axmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdifataax axmed ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey. guuleed mahad aadan oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa cali mahad aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Malawi sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo cali mahad aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo guuleed mahad aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526993813. hawiye saalax cabdi oo joogta Garbaharey waxay baafinaysaa saalax cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Ethiopia 2015 haddaba haddii uuna maqlayo saalax cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo hawiye saalax ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey. cabdinuur samatar oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa xaashi nuur samatar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Tanzania sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo xaashi nuur samatar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdinuur samatar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. xaawo cabdi xaaji oo joogto Garbaharey waxay baafinaysaa Nuur Axmed Nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur Afrika 2015 haddaba haddii uuna maqlayo Nuur Axmed Nuur ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaawo cabdi ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey.
shucayb shire aadan oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa xasan shire aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka mosambiik sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlaya xasan shire aadan amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo shucayb shire aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 eber 725 eber. xaliimo muuse axmed oo joogto tuulo beerwaaq waxay baafinaysaa cabdinaasir xaashi aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya 2016 haddaba haddii uuna maqlaya cabdinaasir amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaliimo muuse ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beerwaaq. cali geele cilmi oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa deeriye axmed dalaal waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan norway sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo deeriye axmed dalaal amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali geele cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. xasan xuseen cilmi oo jooga garbaharey waxa uu baafinayaa saleebaan xasan xuseen waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan mosambiik 2014 haddaba haddii uuna maqlayo saleebaan xasan xuseen amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xasan xuseen cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garbaharey. jamaal cabdulaahi cismaan oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa xasan cismaan abshir waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka finland sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlaya xasan cismaan abshir amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo jamaal cabdulaahi cismaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 eber 1. barni maxamed faarax oo joogto garbahaare waxay baafinaysaa cabdirasaaq axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka ingiriiska 2012 haddaba haddii ayna maqlayso barni amabay jirta cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdirasaaq axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garbahaare. khadiijo bilow maxamed oo joogta baardheere waxa ay baafinaysaa maryan bilow maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka uganda sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayso maryan bilow maxamed amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo khadiijo bilow maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. nimco diiriye guuleed oo joogto garbahaare waxay baafinaysaa asiili cabdinaasir diiriye waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan mosambiik 2016 haddaba haddii ayna maqlayso asiili amabay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nimco diiriye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garbahaare. cismaan maxamed guhaad oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa khaliif maxamed guhaad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka etoobiya sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo khaliif maxamed guhaad amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cismaan maxamed guhaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 hooyo weliya cali mataan oo joogto magaalada muqdisho waxay baafinaysaa wiilkeeda jaabir ibraahim kheyre oo 8 jir ah waxaa ugu wardambeysay 25 bishii 2 ee sanadkan haddaba haddii ay jirto cid aragtay jaabir ibraahim kheyre fadlan waxaa si naxariis looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho ama telefoonka hooyo weliya cali mataan 2526 1573 5496. hooye aamine xasan xuseen oo joogta magaalada muqdisho waxa ay baafinaysaa wiilkeeda aadan siidow da-diisu waa 8 jir waxaa ugu wardambeysay bishii 2 ee sanadkan haddaba cid allaaliya ciddii aragtaa waxaa si naxariis leh looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan xafiiska baafinta bisha cas ee magaalada muqdisho amaba telefoonka hooye aamine xasan xuseen 2526 aan ku celiyo 2526 axmed cumar cabdiraxiin oo joogo tubaako waxa uu baafinayaa xaawo cabdiraxiin axmed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 2015 haddaba haddii ayna maqlayso xaawo cabdiraxiin amabay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo axmed cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay tubaako. habboon axmed cali oo joogta baardheere waxa ay baafinaysaa mustaf axmed cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka liibiya sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo mustaf axmed cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo habboon axmed cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere.
baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay cibaado maxamed oo joogto qardho waxay baafinaysaa siciid maxamed ciise haddaba haddii uuna maqlaya siciid ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cibaado maxamed ciise iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qardho baafintiina maanta waa naga intaas idaacaddiina intaa ayaynu kusoo